مشرح اللبان بشير حسين حرسي oo kamid ah musharaxiinta xisbiga kulmiye golaha wakiilada Soomaaliland ee gobolka Awdal uga sharaxan ayaa maanta si weyn loogu soo dhaweeyay magaalada Dira iyo deegaanada ka tirsan gobolka Awdal soo dhaweyntan oo ka qayb qaateen taageerayaasha musharaxu munaasabada daba lagu soo dhaweynayay musharaxani oo ka qabsantay degmada Dila ayaa ugu horreyn waxa halkaas ka hadlay qaar kamid ah oday dhaqameedka iyo dhalinyarada degmada Dila iyagoona sheegay in codkooda ugu weelin doonaan مشرح اللبان بشير حسين حرسي مشرح قبل كأوضل وله وكيلة بشير حسين حرسي أو ننور شيء تجمد الدلع ما أنت وحنو صور دويني سلكلي لابتها سقاء حسب حاكمك وحن الله يقول رجينا كيا صوب بش يبرواقك صوب الله كيالو هل يقول يستيقظ كدليا يو بشير وادر يرتلك ويكدونيان ديار وحن كوغنا هينا كدورنا ديار وحن كوغنا هينا ندادهي waxaan leeyahay Bashiir maanta waxa ku soo dhaweeyay dadweynaha Dila oo aan u kala harin iyagoon loo kala abtirin musharax Bashiir Xuseen Xirsi aad iyo aad baan ugu qanacsanahay waxaan leeyahay Bashiir ku soo dhawow degmadaadii gobolkaagii iyo dadkaagii oo maanta si fiican kuugu heelan oo annaguna aan qayb ka nahay walaalayaal waxaad ogaataan inaan hawlgalkaasi inaan ka midho dhalino oo midho dhalkeeguna yahay inaan codka yar iyo weyn aan si fiican u bixino oo inamadaan soo doranay ganduhu u keenay golaha u keenay la siiyo codka waxa weeye walaalayaal sidaad maanta aad u soo dhaweyseen ee aad ugu soo galbiseen dharaarta doorashadana ay dhacaysa codkana sidaasaa loo in laydinku farxad la doonayaa xildhibaanada iyo madaxda kolka la dooranayo waa la sharaxaaye isma sharaxaan xildhibaan Bashiirna waxaan leeyahay waxaan ku rajaynaynaa ilaahay ku baryeena waa rabadaan waa ayaamihii u dambeeyay astaanta lahaa ee laynoo sheegay guusha inuu ilaahay ku siiyaan ilaahay ku barina kama niyad xumi anigu maanta lafdhabartu waxa weeye dhalinyarada boqolkiiba 80 waa dhalinyarada waxa weeyaan idinka ilaahay waxaan idin baryaynaa inaad kuwii meeshooda ka soo dhalaala inaad noqotaan ilaahay baan idin baryaynaa ugu dambeyn isaguna waxa halkaas ka hadlay siyaasi Jamaal Daahir Shirdoon iyo musharax Bashiir Xuseen Xirsi waxaanay tibaaxeen wuxuu doonayaa inuu isku dabaqo oo dhinaca horumarka u jeesto inuu xagga biyaha wax ka qabto inuu xagga caafimaadka wax ka qabto inuu xagga waxbarashada ka qabto intaas oo dhan hadii ilaahdo Bashiir u diyaar yahay hadii ilaahdo annaguna waan idin soo xulnay Bashiir haddaba si aynu hawlahaas oo dhan u gaarno oo hawlahaas oo dhan aynu u fulino waxaan idinka baahanahay in aad codkiina nasiisaan maantana aan rabno inaan qaybtii dawladda aan keenno oo soo kordhino oo aan ku buuxino si ay isku kaamil yeelaan oo dhammaantood noqdaan mashaariic horumar iyo barwaaqo inoo keena walaalayaal mar labaad waan idinka mahadnaqayaa sida qiimaha iyo sharafta leh noo soo dhaweyseen kadib markii soo dhaweyntan loogu sameeyay degmada Dilo oo musharaxu dhex lugeeyay ayaa waxa uu xariga si rasmi ah uga jiray xafiiskiisa ololaha ee degmada Dila musharaxa oo sidoo kale loo soo galbiyay magaalada Boorama ayaa xariga ka jaray laba xafiis oo noqon doona xafiisyadiisa ololaha ee inta ka horeysa waqtiga doorashada Hussein Cataye Gafana Universal TV Boorama.